بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan halkan idinkaga soo gudbinayaa insha Allah haduu Ilaahay qadaro qiso diini ah oo aad u faa'iido badan taasoo mudan in lagu cibro qaato. qisadaas oo dhacday waqtigii Umar ibn al-Khattab Allah ka raali noqday uu xukunka islaamka hayay. waqtigaas ayaa 3 qof waxay horkeeneen Umar ibn al-Khattab Allah ka raali noqday nin dhalinyaro ah. waxayna ku yiraahdeen Umar oo ninkan waxaan rabnaa inaad noo qisaasto waxa uu na dilay aabaheen. Umar baa ninkii wuxuu ku yiri maxaad u dishay aabahood? ninkii wuxuu yiri waxaan ahay nin geel jira ah oo geel iyo ari ayaan meel ku daajin jiray. neef geel ah oo kamid ah kuwa aniga aan lahaa ayaa waxa uu daaqay geed ku yaala dhul uu leeyahay odayga oo yacni dhalinyaradan aabahood ah. dhagax ayuu u qaatay markaasna wuu ku dhuftay neefkii geelka ahaa halkaasuna ku dhintay geelkii. aniguna wuxuu yiri waxaan qaatay isla dhagaxii oo aniguna waan ku dhuftay markaas buu isna halkii ku dhintay. isna wuxuu ku dhufanayaa odaygii. Umar ibn al-Khattab Allah ka raali noqday wuxuu yiri haddaba waxaan kuugu qaadayaa xadka macnaha xukunkan kuugu qaadayaa. ninkii ayaa waxa uu dhahay 3 cisho isiiya waayo aabahii ayaa geeriyooday wuxuuna nooga tagay hanti aniga iyo walaalkay iga yar. haddaad i disho hantidaas way lumaysaa iyo walaalkayba labadaba way isla lumayaan. Umar baa yiri yaa ku damiinanayo. ninkii intuu eegay wajiyada dadka yacni markaas meesha joogay goobta ku sugnaa markaas buu wuxuu yiri ninkaas oo uu ku fiiqay farta saxaabigii weynaa ee Abaadar yacni Abuudar. Umar wuxuu yiri Abuudar ninkan ma damiinanaysaa? Abuudar waxa uu yiri haa amiirkii mu'miniintow. Umar waxa uu yiri adigu ma taqaanid haddii la waayana waa lagugu qaadayaa xukunka yacni dilka ninkan lagu qaadi lahaa iyo xukunka ninkan xadka laga oofin lahaa adiga bedelkiisa laga oofinaya. Abuudar wuxuu yiri anaa damiinanayo amiirkii mu'miniintow. ninkii waa la fasaxay wuuna baxay. maalintii koowaad waa dhamaatay sidoo kale maalintii labaad iyo tii saddexaadba waa ay dhamaadeen. dadkoo dhan waxay u cabsoonayeen Abuudar si aan loogu qaadin xadka dilka. haddaba wuxuu waqtigu isguraba waxaa la gaaray xilligii ay qoraxdu dhacaysay oo Abuudar ayaa la sugayay in xukunka lagu fuliyo ilaa ninkii lama hayee balse Ilaah mahadiis goor ay qoraxdu sii dhacayso oo ay maqrib tahay ayaa waxaa meel aad u fog ka soo muuqday oo saxarana ah. ninkii la wada sugayay isagoo uu ka muuqdo daal iyo safar dheer ayuuna soo hor istaagay amiirkii mu'miniinta ee Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu isagoo dhahayo waxaan u dhiibay hantidii iyo walaalkayba abtiyaashii haddana waan ku imid si aad iiga qaadid xadka ama dilka. amiirkii mu'miniinta Umar aad ayuu u yaabay. Umar ibn al-Khattab Allah ka raali noqday waxa uu su'aalay ninkii wuxuuna ku yiri maxaa ku soo celiyay? waxa suurtagal ahayd inaad iska baxsatid oo yacni jaanis aad bahaysatay oo aad ku baxsan kartay maxaa ku soo celiyay? ninkii baa wuxuu ku jawaabay waxaan ka baqay in la dhaho dadka islaamka dhexdooda waxaa ka dhamaatay oofinta balanta yacni balanti ay qaadan in ay oofiyaan dadka islaamka dhexdooda way ka dhamaatay oo waa laga waayay. Umar misana hadan waxa uu su'aalay Abaadar oo uu ku yiri maxaad u damiinatay ninkan adigoon wax aqoon ah aanan u lahayn yaa Abaadaro maxaad u damiinatay? Abaadar baa wuxuu ku jawaabay waxaan ka baqay in la dhaho dadka islaamka ah dhexdooda waxaa ka dhamaaday khayrkii iyo naxariistii yacni ay isku naxariisanayeen dhexdooda. intaas kadib waxaa qisadii la yaabay oo la fajacay wiilashii aabahood la dilay oo waxay yiraahdeen waan cafinay ninkan waxna uma qabno
cumar ayaa su-aalay wiilashii oo ku yiri sabab maxaad si u cafiseen ninkan oo aabihiin dilay. wiilashii ayaa ku jawaabeen waxaan ka baqnay in la dhaho dadka islaamka ah dhexdooda waxaa ka dhammaaday cafiska. wa ilaa liqaa'in aakhara. qisadeeni maanta halkaas ayaan kusoo koobeynaa insha allah. waa walaashin alla dartiis idin jecel. astawdicu allaha aladii laa tadiicu wadaa'icahu. wasalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. bismi illaah alxamdu lilaahi wasalaatu